assalaamu calaykum. barnaamijkii ka horreeyey waxaaynu ku soo qaadanay ahmiyadda iyo fadliga ay waxbarashadu leedahay. barnaamijkeennan maantana waxaynu ku eegi doonaa tilmaamaha ardayga guulaystay, innagoo ka soo xigan doonaa buugga tilmaamaha ardayga guulaystay ee uu qoray cabdiraxmaan axmed garaad soofe, oo ah isla buuggii aynu barnaamijkii hore ka soo xiganay. arday badan oo waxbaratay ayaa ku guul daraysatay inay maareeyaan naftooda, ummaddana ay wax ku soo kordhiyaan, halka ay kuwa kala guulaysteen naftoodana ay maareeyeen, ummaddana ay anfaceen. ardaydu waxa ay leedahay noocyo badan oo kala duwan, kaasoo saamayn ku yeelan doona mustaqbalkooda. haddaba tilmaanta koowaad ee lagu yaqaano ardayga guulaystay waxa ay tahay daacadnimo. waa arday wax u baranaya inuu naftiisa ka saaro mugdiga jahliga, gaadhsiiyana iftiinka cilmiga, rajaynaya inuu aakhiro ku badbaado cilmiga uu alla baray, jannadana uu ku galo. intaas kabacdina doonaya inuu ku anfaco cilmiga uu baranayo dadkiisa, dalkiisa iyo dhammaan muslimiinta. barashada cilmiguna kama aha inuu ku gaadho dadka ammaantooda iyo inuu ku faano, dadkana isugu kibriyo. qofka saas wax u baranayaana kuma liibaano, cilmigiisuna waxtar iyo barako ma yeesho. qodobka labaadna waxa uu yahay cilmi ku camalfal, oo looga jeedo inaad ku camal fasho wixii aad baratay. ardayga guulaystay waa arday ku dhaqma cilmiga uu bartay, iyo wax kasta oo wanaagsan oo uu maqlo. cilmiga haddii lagu camal fali waayo waa uu guuraa. saxaabigii cali bin abidaalibna waxa uu yidhi: hatafa alcilmu bilcamal, fa in ajaabahu wa ila irtaxal. cilmigii ayaa u dhawaaqay camalkii, haddii uu ajiibo cilmigu waa uu joogayaa, haddii kalena waa uu guurayaa. qofku haddii uu cilmiga uu barta ku camal fali waayo, waxa uu shabbahayaa yuhuudda oo ilaahay u cadhooday. waxa aanu la mid yahay dameer kutub sida ama kutub xambaarsan, sida uu ilaahay ku matalayba. isku day inaad ku camal fasho cilmiga, waana inaad noqoto qofka ugu horreeya ee ka faa'iida cilmiga uu bartay. cilmiga aad baratay haddii adiga uu ku anfici waayo, cid kalena anfici maayo. qodobka saddexaadna waxa uu yahay wakhti qorshayn. waa arday wakhtigiisa qorsheeya oo dareensan qiimaha uu wakhtigu leeyahay, jadwal u sameeya noloshiisa iyo hadafkiisa waxbarasho. isweydiiye su'aalahan: bishan maxaad gaadhay? 6dii bilooda tegey maxaad qabatay? sannadkii tegey maxaa kuu kordhay? wakhtigu waa wax qaali ah, waana lafdhabarta nolosha. adduunkan dadka meel gaadhay oo dhammi waa dadkii wakhtigooda ka faa'iidaystay. dadka hadhay ee aan waxba qabsan adduunkanna waa dadkii wakhtigooda dayacay. dadka jannada galay aakhiro waa dadkii wakhtigooda ka faa'iidaystay intay adduunka joogeen. eebbana waxa uu yidhi isagoo arrintaa tilmaamaya: kuluu washrabuu hanii'an bimaa aslaftum fi alayaami alkhaaliya. cunu oo cabba mid bogaadin leh waxa aad soo hormarsateen ayaamihii tegey sababteed. dadka hungoobay ee khasaaray naartana galay maalinta aakhiro waa kuwii aan ka faa'iidaysan wakhtigooda adduunka ay ku heleen. eebbana waxa uu yidhi isagoo kuwaa tilmaamaya: daalikum bimaa kuntum tafraxuuna fi lardi bikayri alxaq wa bimaa kuntum tamraxuun. kaasi waa wixii aad ahaydeen kuwa farxa arlada dusheeda xaq la'aan, iyo waxaad ahaydeen kuwo iskibriya. haddaba u fiirsa labada qolo. kuwa hore waxaa lagu tilmaamay inay adduunka soo shaqaysteen, wakhtigoodiina ka faa'iidaysteen. kuwa kalena waxaa lagu tilmaamay inay iska dayaceen wakhtigii, weliba iskibrin iyo qosol ay ku dayaceen. alle in badan ayaa uu ku dhaartay wakhtiga ama qaybo ka mida wakhtiga, sida casarka, fajarka, habeenkii iyo maalintii. waxa aanay ku tusaysaa dhaartaasi muhiimadda uu wakhtigu leeyahay. allana kuma dhaarto shay aan muhiim ahayn. ibnuqayim waxa uu yidhi: wakhtiga oo la dayaco waxa ay ka daran tahay geerida. idaacatlwakhti ashaddu min almowt. cabdilaahi ibnu mascuudna waxa uu yidhi: umaan murugoon shay saan ugu murugooday maalin ay dhacday qorraxdeedii, cimrigaygina uu nusqaamay, cilmina uusan ii siyaadin. xasan albasri waxa uu yidhi: ina aadanow waxaad tahay ayaamo, haddii ay maalini tagtana qayb kaa mida ayaa tagtay. qodobka afraadna waxa uu yahay tilmaamaha ardayga guulaystay waxaa ka mida waa arday alle ka cabsada, cibaadaysta, akhlaaq fiican leh, socodkiisa iyo hadalkiisuba aqoontu ay ka muuqato kuna dheehan tahay.
masaajidka ku xidhan salaadana jamaacada ku ooga fartooma awaamirta alle iyo rasuulka